السلام عليكم صاحبي أنا عبد الجليل عثمان عبد الجليل برو أيضا ساعتان دوانهان كنال كان كمان كل من أو مقالة مدين سوق الدنيا سفر أيام كسوقنا أفريقيا وحان جوجا هذا سوماليا وأنا دين كلا هذا يا مقال كان واحد يقول وذا جدونا كو يطبعا حرفضود أو جعنتا ما حرفدها جعنتا اللي هو يخانو كواسي أو لبدو كل شيء لبعتن كي يوحي كده بيه هدي عاد برتا عاد كجمار بدون تباهيدا شغلان تاعي ما أنت دلكينه كجرتا أما بقبل ذاك الدون سومالي ده أما بقيه سومالي ده كجرتا هدي أيها لهذا إثيوبيا كليلك سومالي ده جيبوتي سومالي قلبت أنا راه جيبوتي يسدو كلا صاحبيا سوماليا يو NFD أو أن تطبعت كان تجي طلعن يربضن أيان لو كل مي أو شغلانة دتكو حي كعبرين اللي يردو أنا شغل هيسنين لكن شغلان تهي ستران يرد إنه حواي أما شغلين كإرادين يعني وقوة حفيسة لقى شقية وقوة وايت كلا جوبس كله يخانا أما بكلية تقول عادي هاي مقال كانوا حدين كل وده جدونا صاحبيا الكو يطبعن إلى يشن يطبعن حرفضود أو حرفدها جعنت لقى قبتها si oo labada kun shan iyo labaatanka bal hadii aad barataan aad kaga maarmi kartaan ama aad kaga bixi kartaan shaqo la'aanta idin haysata isla markaana aad kaga maarmi kartaan in dad loo shaqeeyo سلام صاحبيال مقعيق وانا سرعة دون وحان كتسانحي شبكة Connect Wave oo ah shabakad isku xirto ganacsatada iyo influencerska hadii aad u baahan tahay in ganacsigaaga lagu xayeysiiyo laakiin aan la asneed meel u soo martid dadkii ku xayeysiin lahaa waxa si toos u la soo xiriiri kartaa Connect Wave anigana qayb ka ahay waxa kale oo shabakadu ku mideysan dad badan oo caan ah oo ay ku xiran yihiin malaayiin dad kor u dhaafayso hadii aad u baahan tahay inaad ganacsigaaga kobcisid waxa kala soo xiriiri kartaa nambarada hoose shabakada Connect Wave intii aan ku sugnaa Afrika gaar ahaan aan ku sugnaa Kenya iyo Soomaaliya waxaan u kurgalay nolosha iyo xirfadaha ay haystaan dhalinyarada Soomaaliyeed waana sababta ugu dhalisay in muuqaalkan aan idin la wadaago maanta waxaan tagay magaalada Garissa ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya dhalinyarada ugu badan shaqooyinka fursadaha gacanta ama xirfadaha gacanta ka shaqeysta waa dad ajaanibi ah oo ka yimaada Kenya qaybaheeda kala duwan magaalada Garissa intii aan ku sugnaa waxaan arkay ilaa iyo 7 ilaa 8 mashruuc oo waaweyn oo ay ku jiraan garoomo la dhisay guryo la dhisay xarumo isbitaalo iyo mashaariic kala duwan sida solarka dhammaan mashaariicdaasi waxa gacanta ku hay dad kale oo madow ah waxaana ku yara ama aan laga helaynin dhalinyaro Soomaaliyeed oo mashruucaasi ka shaqeysa muuqaalkan waxaan idin kula wadaagi doonaa ilaa iyo 11 xirfadood oo gacanta ah kuwaasi oo hadii aad barata 2025 iyo wixii ka dambeeyay aad noloshaada ku maareyn kartid isla markaana aad kaga maarmi kartaa inaad cid u shaqeyso ama aad qof kale u shaqeyso sidoo kale waxaan imaaday magaalada Kismaayo oo aan hadda ku suganahay caqabadaha ugu badan ee shaqo la'aanta dhalinyarada Soomaaliyeed haysta waxay tahay in qaarkood dhalinyaradaasi aanay garaneyn ama aanay lahayn xirfadaha gacanta ah marka muuqaalkan waxa ugu dhaliyay inaan idin soo duubo waxay tahay in dhalinyarada Soomaaliyeed inta ugu badan ay shaqo la'aan yihiin laakiin fursaduhu ay yaalaan wadanka gaar ahaan Soomaaliya iyo Kenya طبعا جيبوتي iyo Soomaali galbeedna sidaas si lamid ay fursaduhu u yaalaan laakiin dhalinyaradeena Soomaaliyeed ayaa iyagu dhankooda waxa uu ka jira gaabis la xiriira barashada iyo fahamka xirfadaha gacanta ama xirfadaha gacanta loogu shaqeysto oo dad badan ay malaayiin dollar ka sameeyeen caalamka intiisa kale hadii ay noqon lahayd projecti waaweyn oo multi-million ah dadka ka shaqeysa waxay ka kala yimaadaan Kenya intii aan ku sugnaa magaalada Kismaayo sidoo kale waxaan arkay mashaariic waaweyn oo horumarineed oo dawlad goboleedka Jubbaland ay ka fulinayaan magaalada Kismaayo mashruucyadaasi oo isugu jira kuwa wadooyin ah kuwa biyagelin ah dhammaan waxa ka shaqeeya dad ajaanib ah dhalinyaro Kenyan ah dhalinyaro kale oo Afrikaan ah Ethiopia ka soo gashay laakiin dhalinyarada Soomaaliyeed waxay joogaan magaalada iyagoo oo xirfadahooda aan ka faa'iideysan isla markaana fursadahaasi gacanta ay aad ugu yar yihiin waxaan idin kula talinayaa hadii aad muuqaalkan daawanayso oo ah tahay dhalinyarada Soomaaliyeed dhamaanteen suurtagal ma ahan inaanu xafiis ka wada shaqeyno suurtagal ma ahan dhamaanteen aanu noqono dad dawladda oo wada shaqeeya balse shaqo la'aantana sida kale aad ugu gudbi kartaa ama aan ugu gudbi karno waxay tahay in aanu ku dhiirana fursadaha gacanta isla markaana aanu barana adiga oo dawladda u shaqeeya adiga oo xafiis dawladeed ku shaqeeya ayaad baran kartaa xirfad gacanta taasi oo marka noloshaada hoos u soo dhacda aad ku maareyn kartaa in aad barata
xirfadahaas gacanta ama aad nolol maalmeedkaada ka soo raadsata xirfadaha gacanta waa suuq casri ah isla markaana malaayiin dollar hay laakiin waxa ay u baahan yihiin ama loogu baahan yahay suuqaasi in dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka faa'iideystaan hadii ay noqon lahayn kuwa injineer noqdo oo guryaha dhisa hadii ay noqon lahayn kuwa ka shaqeeya solarka kuwa biyo-gelinta ka shaqeeya iyo kuwa wadooyinka ka shaqeeya intuba dhalinyaradeennu waxaan rabnaa dhamaanteen inaanu shaarka cadeysano oo aanu xafiisyada ka shaqeysano badalkii shaqooyinkaasi aan ku dhiiran lahayn isla markaana aan nafteena iyo nolosheena ku maareen lahayn oo aan nolol maalmeedkeena ka soo dhacsan lahayn fadlan intaan u gudo gelin 11 kan shaqo oo ah shaqada gacanta ama xirfadaha gacanta aan idin soo xilay waxaan idin ku dhiirigelinayaa in aad badashaan aragtideena la xiriirta shaqooyinka gacanta isla markaana aad ku dhiirataan adigoo oo engineer noqon kara isla markaana dhismayaasha casriga ah ee dunida ka shaqeyn kara adigoo oo solarka ka shaqeyn kara adigoo oo biyo-gelinta ka shaqeyn kara adigoo oo engineer wadooyinka noqon kara waa nasiib darro in magaalooyinka Soomaalida inta ugu badan mashaariicda noocaas ah oo malaayiinka dollar lagu bixiyo ay ka shaqeeyaan dad ajaanib ah oo ka kala yimaada Ethiopia ka yimaada Kenya iyo Afrikada meelaheeda kale marka fadlan dhalinyarada waxaan idinku dhiirigelinayaa in aad badashaan aragtiina ku aadan inaanu kaliya u baahanahay inaanu ka shaqeyno xafiisyada dawladda inaanu siyaasiyiin wada noqono in aanu accountant wada noqono iyo in sidoo kale aanu warbaahinta ka wada shaqeyno waxaan u baahanahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo buuxisa suuqan banaan Muqdisho hadii aad tag sidaas si la mid ah dhismayaasha waaweyn ee casriga ah waxa ka shaqeeya dhalinyaro Kenyan ah oo Afrika qaybaheeda kala ka soo shaqo tagay halkan magaalada Kismaayo mashaariicda biyo-gelinta wadooyinka ee aan arkay waxa ka shaqeeya dad ajaanib ah dhalinyarada Soomaaliyeed waxaad ku arkaysaa goobaha cafeteria goobaha lagu caawiyo iyagoo oo sheeganaya in shaqalaan ay haysato marka fursaduhu waa yeelan laakiin inaga ayaa loo baahan yahay inaanu aragtideena bedelna isla markaana aanu ku dhiirana inaanu wax soo saar dad hal abuur leh noqono 11 kan xirfadood ee halkan idin kula wadaagi doono oo ah xirfadaha gacanta waxa isugu jiraan kuwa digital ah ilaa iyo aan ugu guda gali doono kuwa aan digital ahayn balse waxaad ogaataa in xirfadaha gacanta sidoo kale hadda iyaga laftirkooda digital laga dhigay oo la farsameeyay siyaabo kala duwan aad nolol maalmeedkeeda ugu soo saaran karto isla markaana aad qofku hal abuur inaad yeelato oo aad wax ixtiraaq kaliya aad u baahan tahay badalkii aad shaqo la'aan ku ahaan lahayd magaalooyinka sida Kismaayo Jigjiga Djibouti iyo sidoo kale Garissa oo aan tagay iyo Muqdisho iyo sidoo kale gobolada kala duwan ee dalkeena Soomaaliya haddii aan ku hormaray oo aan u guda galay xirfadahan gacanta waxa ugu horeeya sida waxa loo yaqaan photography and videography xirfadaha muuqaal sameynta iyo sawir qaadista waa xirfado muhiim ah oo gacanta laga sameeyo inkastoo ay qalab u baahan yihiin haddana waa xirfad muhiim ah oo aad baran karta 2025 iyo wixii ka dambeeyay isla markaana aad nolol maalmeedkaada ka soo saaran karta youtuberada sida Peter McKinnon oo halkan idinkaga muuqdo waxay idinka caawinayaan inaad noqoto photographer wanaagsan ama muuqaal qaado wanaagsan isla markaana halkaasi aad ka baratay xirfadda sawir qaadista iyo muuqaal sameynta waxa sidoo kale loo yaqaan xirfadda muhiimka oo ah sound design ka filimada ugu badan ee Soomaaliya lagu jira ee hay'adaha caalamiga ay sameeyaan ee Soomaaliya gudaheeda lagu duuba dhalinyarada ka shaqeysa waa kuwa dalka dibadiisa laga keenay hadii laga keenay lahaa Kenya iyo Europe qaybaheeda kala duwan filimo fara badan sida Black Countdown ayaa laga sameeyay Soomaaliya astaan filimo ayay sameeysaa kanaalka loo yaqaan marka sound design ka waa wax muhiim ah waana farsamo gacanta ah oo aad baran karta 2025 iyo waxa ka dambeeyay intuba marka hadii aad tahay qof dhalinyaro ah oo dalka ku sugan fadlan waxaad raadisaa halkii aad ka baran lahayd sida Udemy iyo Skillshare waxaad ka baran kartaa xirfadaha loo yaqaan sound design ka ilaa iyo 5,000 6,000 ilaa iyo 10,000 in ka badan ayaad mashaariicda kala duwan filimada iyo hay'adaha kala duwan ee caalamka aad kaga shaqeysan kartaa sound design kana waxaan idinku talinayaa in aad barataan hadii aad ku sugan tihiin gobolada kala duwan ee Soomaalida waana xirfad muhiim ah gacanta laga qabto 2025 iyo wixii ka dambeeyana loo baahan doona sababtoo ah dadku hadda waxay noqonayaan more digital film sameynta ayaa soo badan doonta dhinaca technician ka ee farsamada gacanta ee filimada la xidhiidha iyaguna waxay noqon doonaan baahi suuq aad loogu baahan yahay ama xirfad aad loogu baahan yahay oo laga maarmaan ay tahay inaad barato 2025 marka hadii aad sawir qaado tahay oo aad hadii aadan ku wanaagsan aan idhaahdee dhinaca sawir qaadista iyo muuqaal sameynta waxaad ku wanaagsanaan kartaa dhinaca
soundka isla markaana waxaad noqon kartaa sound engineer adiga oo filimada kala duwan ee dalkeena iyo gobolka lagu soo bandhiga aad kaalin muhiim ah ka qaadan karta dhalinyaro badan ayaan garanaya oo Daahir Cabdulla ninkan saaxiibkii uu ka mid yahay oo dhinaca sound design ka ku shaqeysta shirkado fara badan iyo hay'ado kala duwan la soo shaqeeya marka fadlan haddii aad tahay qof dhalinyaro oo Soomaaliyeed oo ku sugan dalkii hooye ee Soomaaliya waxaad isku daydaa in aad barata farsamada loo yaqaan sound engineer ka Daahir Cabdulla waxa uu ka mid yahay dhalinyarada farakutiriska ee gudaha Soomaaliya ku nool ee ku shaqeysta dhinaca farsamada sound design ka waa nin aan idinku dhiirinay inaad reach gareysaan isla markaana aad la xiriirtaan oo aad xirfad iyo wax aqoon ka kororsataan graphic design and screen printing sidoo kale waa xirfadaha gacanta laga qabta engineering ayaad u baahan tahay inaad noqoto laakiin computerkaaga ayaad ku sameyn kartaa graphic designer haddii aad noqoto sidoo kale waa xirfad ama skill gacanta laga sameeyo isla markaana aad computerkaaga ula dul tagi doonto aadka ayaa ka mid ah saaxiibayaal sidoo kale wax sawirka iyo naqshadaynta hay'adaha kala duwan ee Soomaaliya ka howlgala hay'adaha aan dawliga ahayn iyo kuwa dawliga intuba haddii aad u samayso aad qurux badan aad wax u sawirto oo qof aad wax sawira noqoto suuq ayuu leeyahay magaalooyinka kala duwan ee Soomaalida ayaad ku soo bandhigi kartaa farshaxankaaga adiga oo muujin kara sida wax loo sawiro quruxda dalkeena ayaad soo bandhigi kartaa dadka hore ee taariikhda leh ee dalkeena ayaad sawiri kartaa waxyaabaha dhaqanka ee caanka oo Soomaalidu ku yihiin ayaad sawiri kartaa aqal hooriga ayaad sawiri kartaa waxyaabaha agabka ee dhaqanka Soomaalida ayaa sawiri kartaa marka aadka ama xirfadda wax sawirka waa xirfad naga maqan isla markaana magaalooyinka Soomaalida intooda ugu badan aan laga yaqaan badalkii aad sugi lahayd isla markaana aad shaqalaan ahaan lahayd waxaad isku daydaa in aad barato sida wax loo sawira isla markaana wax loo design gareeyo isla markaana wax loo ictiraaqa marka waxaan idin kula talinayaa saaxiibayaal in aad isku daydaan inaad wax abuurtaan oo aad wax ictiraaqdaan isla markaana aad ka war doontaan hay'adaha ayaad u sawiri kartaan dadka dawladda wasiirada iyo baarlamaanka ayaad u sawiri kartaan guryaha ayaad u sawiri kartaan aqal hooriga naqshadaha ayaad u sawiri kartaan hoteelada caalamiga ee gudaha Soomaaliya ku yaala ayaad u sawiri kartaan waxaad sidoo kale kaga qayb qaadan kartaan dalxiiska iyo soo gudbinta dalkeena ayaad kaga qayb qaadan kartaan marka haddii aad ku wanaagsan tahay wax sawirka gaar ahaan aad ku wanaagsan tahay sida aan ku arkay gobolada kala duwan ee dalkeena waa fursad halkaasi ka maqan waxaan idin kula talinayaa sidoo kale dhinaca aadka iyo wax sawirka inaad waqti badan gelisaan isla markaana ay noqoto xirfad muhiim ah oo aad wax ku sameyn kartaan architecture iyo sidoo kale 3D printing ayaad sidoo kale sameyn kartaan Nairobi haddii aan tusaale u soo qaata waxaa jira kumanaan shirkadood oo ka shaqeysa dhismaha guryaha magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya shirkadaha ugu badan ee aan la kulmay qaybka aadka ama qaybka loo yaqaan architecture waxa uu sameeyaa dad aan Soomaali ahayn oo ajaanib ah sida Kenyaanka ayaa u sameeya haddii aad tahay qof Soomaali oo architecture ku wanaagsan isla markaana ku wanaagsan sida wax loo sawiro ama naqshadaynta ku wanaagsan dhismaha guryaha halkaas fursad ayaa kaaga banaan waxaadna sidoo kale ka soo saaran kartaa nolol maalmeedkaaga marka fadlan waxaan idin kula talinayaa inaad architecture noqotaan isla markaana aad barataan sida 3D ga loo sawiro guryaha ugu badan ee Nairobi laga sameeyo shirkado caalami ayaa garanaya oo aan Soomaali ah oo guryaha dhisa company ayaa jira fadlan la xiriir shirkadaha waaweyn ee guryaha dhisa ee ku sugan Soomaaliya ee ku sugan Nairobi ee ku sugan qaybaha kala duwan ee ku sugan magaalada aad hadda ku sugan tahay waxaad sidoo kale baran kartaa architecture-ka waa fursad kale oo muhiim ah oo aad nolol maalmeedkaaga ka soo saaran karta isla markaana aad takhasus wanaagsan ka sameyn karta waa suuq dihan isla markaana aan idin kula dhiirigelinayaa saaxiibayaal inaad barataan sida 3D loo sameeyo iyo sidoo kale architecture loo sameeyo waa suuq muhiim ah isla markaana 3D printerada ayaa sidoo kale baran kartaan oo xirfado muhiim ah oo ay u baahan yihiin shirkadaha caalamiga iyo shirkadaha digitalka ka shaqeeya ee gudaha dalkeena iyo sidoo kale gobolada kala duwan ee nagu hareereysan heat pressure mashiinadan heat pressure loo yaqaan ee lagu sawiro sidoo kale dharka lagu soo saara sidoo kale waa xirfad muhiim ah magaalada Kismaayo intaan ku sugnaa meelo kooban ayaan arkay oo dharka noocan camal ah printer gareysa balse haddii aad la xiriirta ama aad la xiriirta shirkadaha waaweyn ee caalamka ah print on demand ayaad sameyn kartaa heat printerada mashiinadaasi iyaguna sidoo kale wax weyn ay ka joogaan magaaladan Kismaayo iyo guud ahaan deegaanada Soomaalida waxaad dharka ka dalban kartaa meel ka baxsan gobolka sida Malaysia ayaa dalka iyo gobolada ama dalalka caalamka ee dharka materialka fiican ayaad ka dalban kartaa dharka halkaasi ayaad t-shirt kala duwan ka soo dhoofin kartaa funaanadaha ayaad soo saari kartaa dharka shaararka kambaniyada kala duwan
dharka dumarka iyo dharka ragga intuba marka haddii aad heshay heat pressure waxaad dhisan kartaa brand adiga ku gooni ah isla markaana halkaasi ayaa waxaad ka dhisan kartaa shirkad wax soo saar isla markaana supplier fara badan ayaad heli kartaa marka haddii aad tahay qof dhalinyaro ah oo ku sugan gudaha dalka iyo gobolka intiisa kala fadlan waxaan idinku talinayaa in aad barataan sida heat pressure-da loo adeegsado iyagoo qiimo jaban $500 $800 $1,000 ayaad soo iibsan kartaa hal mar ayaad maalgelin sameyn kartaa waxay intaasi ka dambeeyay saaxiibayaal waxaad noqon kartaa warshad adigu wax soo saar design ayaa sameyn kartaa tababaro ayaa la qabtaa dalkan Soomaaliya aanu hadda joogna tababaradaasi hay'adaha qabta waxay u baahan yihiin in funaanadaha loogu print gareeyo logooyinkooda loogu print gareeyo fariimaha ay gudbinayaan koofiyadaha sidoo kale loo soo saaro marka waxaan idinku talinayaa sidoo kale in idinka oo xitaa la macaamilaya shirkadaha sida Soomaaliya Muqdisho camal ee wax printer gareeya in aad waqti badan gelisaan isla markaana saaxiibayaal aad halkaasi nolol maalmeedkiina ka soo saartaan guryaha sidoo kale calamada Soomaaliya ayaad ku buufin kartaan marka waxaasi oo dhan saaxiibayaal waa xirfado muhiim ah oo xirfadaha gacanta oo aad nolol maalmeedkiina ka soo saarin kartaan isla markaana aad ganacsi xor ah ka sameyn kartaan oo madax banaan inta aad $200 iyo $300 hay'ad NGO ugu shaqeyn lahayd ama xafiis dawladeed ugu shaqeyn lahayd tan ayaa ka muhiimsan ka cimri wanaagsan oo isla markaana ay tahay business madax banaan oo aad adiga shakhsiyan u leedahay oo adiga aad wax ku soo saaran karta marka fadlan waxaad ku dadaashaan saaxiibayaal inaad barataan sida heat pressure-da mashiinadaasi loo adeegsado isla markaana suuq ayuu leeyahay oo wax loogu soo saaray video editing iyo content creation marar badan ayaan ka hadlay waa suuq muhiim ah oo xirfadaha gacanta ah sida muuqaalada loo duuba iyo sida muuqaalada loo edit gareeyo haddii aad barataan sidoo kale waa xirfado muhiim ah oo aad gacanta ka qaban kartaan isla markaana nolol maalmeedkiina aad ka soo saaran kartaan muuqaal sameynta marka la dhaha dadka aragti kala duwan ay ka qabaan laakiin inaad muuqaal sameeyo noqoto waa passion kaliya ma ahan meel nolosha lagu dabiro dad badan ayaan garanaya oo content creator bad waxaan idinku dhiirigelinayaa haddii aad rabtaan inaad muuqaal sameeyo noqoto ama muuqaal soo saaran noqoto waa in ay noqotaa xirfad 100% aad waqtigaaga iyo juhdigaaga iyo qarashkaaga intuba aad gelisay markaana ay mid wax soo saar noqoto shirkadaha kala duwan ee caalamka ayaad content creator u noqon kartaa hay'ado ayaa ka howlgalay NGO kala duwan ayaa dalkeena ka howlgala waxa ka howlgala sidoo kale telefishinna ee kala duwan hay'ado caalami ayaa sidoo kale la xiran kartaa oo muuqaalo u duubi kartaa marka inaad muuqaal sameeyo noqoto isla markaana muuqaal sameeyo xirfadle aad noqoto waxaad u baahan tahay saaxiibayaal in juhdi badan aad gelisa xirfadaadana aad sidoo kale ku dadaasha isla markaana aad xirfadaada kordhiso sida wax loo duuba iyada laftirkeeda ayaa aad ah ama waxa ay tahay wax muhiim ah oo takhasus gooni u badan waa inaad noqotaa qof professional ah marka aad wax duubaysa in muuqaal iska sameyso aad kaamirada soo qaadato kaama dhigaysa inaad noqoto muuqaal soo saara waxaad u baahan tahay inaad waxa aad duubaysa ay passion ka yihiin oo ay kaliya ka noqonin waxaad nolol maalmeedkaada ka soo saaraysa marka waa inay passion ka noqdaan isla markaana aad waqti ugu badan gelisa juhdi ugu badan aad gelisa barashadooda kobcinta waxaasi aad baranaysa iyo sidoo kale in aad noqoto qofka ugu wanaagsan ee waxaasi ku wanaagsan marka content creation ka saaxiibayaal aad baan idinku dhiirigelinayaa iyo sidoo kale muuqaal sameynta iyo muuqaal edit gareynta fadlan muuqaalada marka la duubayo muuqaal dad badan baa muuqaal sheeki ay duubaan oo aad u sheekiga ah dadka qaar ma garanayaan agabka ay wax ku duubayaan agabka ugu wanaagsan agabka wax lagu duubay iyaga laftirkooda ayaa kala duwan qaar waxa loogu talagalay filmada in lagu duuba qaar waxa loogu talagalay aroosada in lagu duuba qaar waxa loogu talagalay agabka laftirkiisa ayaa xulasho u baahan isla markaana u baahan fahan guud inaad ka haysato agabka aad wax ku duubaysa cidda aad wax u duubaysa iyo sidoo kale waxa aad u baahan tahay marka fadlan content creation iyo muuqaal sameyn dad badan waxay dhahaan aniga waxaan ahay muuqaal sameeya laakiin suuq fiican ma haysto bal muuqaal sameeya waa tahay laakiin bal isfiiri muuqaal sameeya guud miyaa tahay mise qof garanayo waxa uu sameynaya ayaa tahay farqi ayaa u dhaxeeya inaad muuqaal sameeya tahay iyo in qofkaasi waxa uu sameeyo inaad tahay qof garanayo waxa uu sameynayo muuqaalada meelo fara badan ayaa laga fiiriyaa marka la sameynayo frameska ayaa la fiiriyaa muuqaalka lagu duubayo different shots baa la fiiriyaa sharciyo baa jira shuruuc baa jira muuqaalka marka la duubayo inaad camera iska qaadato oo aad qof iska duubto muuqaal sameeyo kaama dhigaysa isla markaana muuqaal soo saar kaama dhigaysa muuqaalada iyo filmmaking-ka waa xirfad muhiim ah barnaamij ayaan ka sameeyay oo ku jira YouTube-kayga Cabdijaliil Show waxaan la fariistay film soo saare Saciid Fadhi ayaan la fariistay haddii aad waqti u hesho fadlan YouTube-kayga Cabdijaliil Show I think 2 bil ka hor haddii aad dib u eegto muuqaalada aan soo geliyay Saciid Fadhi ayaan la fariistay oo film soo saar ah muuqaalkaasi fadlan soo daawo muuqaalka iyo xilliga muuqaalada la duuba iyo agabka muuqaalada lagu duuba iyo waxa ka dhigay muuqaal
soo saara fadlan muuqaal arrintaasi la xiriira waxaad ka daawan kartaa YouTube-kayga Cabdijaliil Show ayuu ku jira halkan ayaan idin soo saari doonaa fadlan muuqaalkaasi daawo marka in aad muuqaal sameey noqoto laftirkeeda waxaad u baahan tahay xirfad dheeri ayaad u baahan tahay iyo juhdi sidoo kale muhiim ah sidoo kale mechanical and technical skills ka muhiimka ay tahay in laga maarmaanka ay tahay inaad barato waxaad kamid ah installation ka sida solar ka loo xiro magaalooyin fara badan ayaan gaars waxaan ku arkay projecting ugu weyn oo East Africa oo ah solar project Soomaaliya meelo badan ayaa solar projects laga hirgeliyay laakiin solar projectiga iyo sida loo hirgeliyay dhammaan waxa ka shaqeysa dad ajaanib ah Kenyaati ah marka engineer dhinaca solar ka ah sida loo install gareeyo iyo sida loo rakibay iyo sida loo monitor gareeyo waa inaad barataa marka sidoo kale solar installation ka saaxiibayaal waa wax muhiim ah oo aan idin kula talinay inaad barataan waa mustaqbalka energy saving ka iyo dad badan ayaa waxay rabaan in hadda ay consume gareeyaan dhinaca solar ka isla markaana ay u leexdaan marka shirkado fara badan iyo hay'ado fara badan iyo dawlado fara badan ayaa hadda waxay ka fikirayaan in solar ka dhankiisa loo jeesto marka solar installation ka saaxiibayaal waa fursad cajiib ah fadlan waad baran kartaan waqtigiin ugu badan ayaad gelin kartaan certification ayaad baran kartaa oo aad ka baran kartaa solar energy I think international and online certification baa jira sidoo kale waxaad sidoo kale free course aad ka baran kartaa YouTube ka sida solar ka loo install gareey iyo sida solar ka loola macaamilo marka fadlan waxaan idinku dhiirigelinayaa sidoo kale inaad barataan sida solar ka loo hagaajiyo waxaa kale oo jira saaxiibayaal sida wax loo yaqaan drone operative sida drone ta loo kaxeeyo iyo loo dejiyo ee loo monitor gareeyo noocyo fara badan ayaa loo adeegsadaa drone ka dad fara badan ayaa drone ka adeegsada drone ka marka laga hadlayo saaxiibayaal waxay noqon kartaa kuwa muuqaalada lagu duuba waxay noqon kartaa kuwa lagu sameeya agriculture ka kuwa filmka lagu duuba iyo sidoo kale kuwa deliver gareeya caalamka meelo badan hadda dadku waxay adeegsan doonaan in delivery drones la sameeyo drone operation inaad barata sida drone ka film loogu duuba sida muuqaalo loogu duuba sida delivery loogu sameeyo adeeg dad loogu geeyo sida farming loogu sameeyo kabaniyo fara badan iyo shirkado fara badan ayaa laga yaabaa in farming dhinaca beeraha ay u adeegsadaan drones gaar ahaan inay ku waraabiyaan beeraha sanadaha soo aadan 5 sano 10 sano soo aadan ma aha wax la yaabo inaad aragta kabaniyo waaweyn oo caalamka oo ka fakaraya sida beeraha loogu waraabin lahaa droneska sida beeraha droneska loogu guri lahaa mirahooda marka droneska iyo operationkooda saaxiibayaal waa sidoo kale xirfad muhiim ah oo dhinaca gacanta laga qabtay isla markaana u baahan in aanu ka warqabno oo aanu ku dadaalno carpentry and woodworking guryaha inaad tiles ka dhigta amaba aad guryaha decoration ku sameysa amaba wax loo yaqaan tiles wax loo yaqaan waa taqaanaan in guriga finishing marka loo dhismaha marka laga soo inkasto engineering dhismaha ay tahay inaad sameysa laakiin dhismaha tiles ka sida loo dhigo guryaha waa in sidoo kale wax sida wood ka loo hagaajiyo sida farsamada gacanta gaar ahaan sida miisaska loo hagaajiyo sida kuraasta loo hagaajiyo sida sariiraha loo hagaajiyo these are all xirfada gacanta laga hagaajiyo oo aad nolol maalmeedkaada ka soo saaran karta marka dadka sariiraha hagaajiya kuraasta hagaajiya guryaha sidoo kale architecture-da ee guryaha hagaajiya ee tiles ka dhiga sida alwaaxyada dhulka la dhiga alwaaxyada darbiyada la geliya iyo installation noocaas loo sameeyo sidoo kale waa xirfad muhiim ah oo aad baran karta engineer ayaad noqon kartaa marka bedelkii aad meel fadhin lahayd oo aad shaqalaan ahaan lahayd amaba aad hay'ad yar u shaqeyn lahayd $200 iyo $400 waxaad noqon kartaa qof wax soo saar isla markaana wax abuur shirkad ayaad sameysan kartaa ganacsi ayaad sameysan kartaa wax yar ayayna kaaga baahan tahay in ganacsi noocaasi aad sameyso marka daraad sidoo kale nin mas'uul ah oo aan saaxiibanahay mar raba inaan halkan ka sheego ayaan gurigiisa ayaan ka soo afuray marka waxaan arkay miis yar oo round ah oo miiska iska caadiga oo woodka alwaaxa ah baa wuxuu ugu dhahay woodkan waxaan ka soo iibiyay Sarit Center oo magaalada Nairobi ilaa iyo Kismaayo ayaa la soo waday marka waad dareemi kartaa in alwaax noocaasi ah la hagaajiyo kursi yar waaye oo round ah noocan ayuu u egyahay ninkaas wuxuu ii sheegay in uu ka soo iibiyay ilaa iyo Nairobi laga soo qaaday oo halkan la keenay waa nasiib darro in adiga oo Kismaayo ku sugan oo alwaax heli kara geedaha alwaax ka sameyn kara alwaax laguma yara geedana laguma yara marka in kursi yar oo noocan amal ah Nairobi laga soo dhoofiyo wuxuu u dhahay Sarit Center baa laga soo dhoofiyay magaalada Nairobi aad buu u quruxsan yahay marka markuu isaga iiga sheekeynay dabcan wuxuu iigu sheegay in baahida loo qabo arrintan laakiin anigu Cabdijaliil waxaan ka eegay alwaax laga soo dhoofiyay ilaa in Nairobi la soo waday ama mees ilaa in Nairobi la soo dhoofiyay anigu ka muwaadin ahaan aad bay ii dhibaysaa qof dhex jecel ay ka hayso dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dalkan intuba marka
fadlan waxaad isku daydaan saaxiibayaal inaad wax abuurtaan oo aad wax ictiraaqdaan oo aad wax dhistaan oo aad garabkiina iyo muruqiina maashaan waa tii heesta ay lahayd muruqiina maalo dhulka midho ku beerta soo muruqiina maalo dhulka midho ku beero muruqiina maalo dhulka midho ku beero macdanta dahabka muujiya wanaaga muujiya wanaaga waa inaan anaga muruqeena maalnaa bedelkii aanu wax badan oo dibadda aan ku tiirsanaan lahayn sidoo kale magaaladan iyo meelo badan oo aan tagay waxaan ku arkay in laga caba fruitka ama biyaha dalka dibadiisa laga soo dhoofiyo waxaad arkaysaa supermarket dhan oo lagu gada camba laga soo dhoofiyo Malaysia camba laga soo dhoofiyo Pakistan camba meel kale oo caalamka laga soo dhoofiyo apple la soo dhoofiyo mango iyo watermelon la soo dhoofiyo waxaasi waa nasiib darro saaxiibayaal mashiino yar yar ayaad iibsan kartaan oo $200 $400 $500 jooga adiga ayaa waxaad ka samaysan kartaa meel yar oo ganacsi ah isla markaana aad fruitska ku shiidi kartaan saaxiibayaal magaaladan Kismaayo fruit waa laga shiitaa laakiin dadka guryaha ay ku shiitaan inta aan joogay maana arkin meel yar yar oo dadku ay fruits ku shiitaan ganacsi banaan waay hadii aad meel yar oo cafe amal aad ka samaysatay isla markaana aad fruit fresh juice aad magaalada khudaar kuma yara aad cambaha shiidaan oo aad apple ka shiidaan oo aad isku dartaan cambaha iyo avocado aad shiidaan waxaad noqonaysaan dad wax soo saar leh isla markaana uma baahanaysiin aad hay'ad u shaqeysaan ama cid kale aad ku shaqeysataan marka fadlan waxaan idin kula talinayaa saaxiibayaal marka waxaad soo iibsan kartaa mashiinada yar yar oo waxba ma joogaan $200 $150 bay joogaan ilaa ugu badnaan $500 ayay joogaan marka haddii aad mashiinada soo iibsataan waxaad furan kartaan meelaha cabitaanada macmacaanka lagu shiida oo si weyn loogu baahan yahay magaalada aad joogto bal fiir yaa haysta macmacaan mashiino ma yaalaan marka haddii aad baraf iyo aad soo qaadatay macmacaanka noocaas ama $2 $3 haddii aad iibta galaaskii wax fiican oo professional aad sameysay dabcan suuq fiican ayaa halkaasi ku jira marka waxaan idin kula talinayaa sidoo kale saaxiibayaal inaad sameysaan cookie and catering business meelaha cookies waxaan ka soo hadlay hadda meelaha lagu cabitaanada lagu shiido laakiin meelaha cookies-ka macmacaanada lagu hagaajiyo aad bay noogu yaryihiin macmacaanada dhan anaga aan cunno meel kale ayaa laga keenaa I think macmacaanka kaliya ay Soomaalida taqaano waa xalwada nooc boqolaal nooc oo kala duwan ayuu macmacaanada leeyahay marka macmacaanada iyo sida loo hagaajiyo iyo sida loo design gareeyo you can turn passion-kaaga into a profitable business la markaan macmacaanada ayaad hagaajin kartaa free courses ayaad Udemy ka baran kartaan YouTube waxaa jira channel fara badan oo dhinaca macmacaanada iyo cookies-ka ka shaqeeya marka haddii aad barato cookies-ka iyo macmacaanada gaar ahaan xilliyada Ramadaanka xilliyada ciidaha ah waa business wax soo saar leh isla markaana aan idin kula talinayaa inaad barataan waxa laga yaabaa supermarket kugu dhow maanta haddii aad tagto macmacaanka ugu badan ee ay hayaan waa shukulaato iyo wax aan loo joogin ee dalka dibadiisa laga keena balse fridges ayaa hadda jira macmacaano fara badan ayaad samayn kartaa oo toddobaadla اسبوعي لaba jeer saddex jeer hadii aad macmacaan sameeyso waa ganacsi muhiim ah oo wax soo saar marka fadlan waxaan idin kula talinayaa dhalinyaro in aad maskaxdeena bal aanu shiilno oo aanu maskaxdaan xidhan kaliya ku xidhan in hay'ad loo shaqeeyo kaliya ku xidhan in dawladda loo shaqeeyo kaliya ku xidhan in shaqalaan leeyahay oo guriga la joogo waa inaan yara furnaa maskaxda oo si out of the box aanu ka fakarnaa marka cooking and cookies-ka iyo sida loo hagaajiyo waa business muhiim ah oo aan idin kula talinayaa inaad barataan home renovation and interior decoration waan ka hadlay in guryaha la decorate gareeya guriga hadda aanu ku jirno alwaax buu ka kooban yahay alwaaxay kala duwan kala duwan meelo kala duwan ayaa leerar laga geliyay qof baa sidan u design gareeyay I'm sure guriga hadda aanu joogno waxa laga yaabaa in ajnabi ah inuu sidan u design gareeyo ama nin Kenyaati inuu sidan u design sorry Kenyaati markaan ku celcelinaa necab aan necbahay Kenyaatiga ma ahan balse waa xaqiiq waxa iga tahay de anigu qof muwaadin Soomaaliyeed baan ahay marka waa inaan anaga aanu is ogaana marka renovation si loo sameeyo guriga for example guriga hadii aan aqoonin xitaa sida guriga loo dhisa which aan idin ku dhiirigelinaa inay jiraan waa inaan soo saarnaa kumanaan kun oo injineero Soomaali oo guriyaha dhisa oo guriyaha naqshaday oo biyo-gelinta ka shaqeeya oo wadooyinka ka shaqeeya laakiin renovation anaga hadda dhalinyaro ayaa la hadlayaa waan idin kula talinayaa in jaamacadaha tagtaan oo bedelkaad baran lahayd international relationship waxaan loo joogin Soomaali hadda waa wada siyaasi bay noqotay waxa ugu baahan tahay inaad barato international relationship xildhibaanadii ayaad aragtaan jawigooda iyo noloshooda marka inaad
siyaasad barata hadda micno badan oo ay Soomaaliya hadda ka joogto ma lahan but waxaan idinku dhiirigelinayaa inaad waxun barataan oo aad waxun ku soo saartaan marka bedelka aad baran lahayd siyaasadda Soomaaliya waad aragtaa dadkii hadda directed geela ugu imaaday baa hadda baarlamaanka jooga wax baarlamaankeena ka dhacay todobaadkan waad aragtaan wax nasiib darro oo dadka isku ceerceersanayaan marka baarlamaan horta meesha ma hayo marka inaad siyaasad iyo baarlamaan waxaan loo joogin baran lahayd ana waxaan kugula talinayaa inaad engineer noqoto guryaha meel kasta caalamka ayaad ka shaqaysan kartaa shirkadaha caalamiga ayaadna la shaqaysan kartaa iyaga ayaana kaaga dhaqaale badan kaaga nolol fiican kaana ixtiraam badan laga ixtiraamo bedelkaad xildhibaan Soomaali noqon lahayd marka waa inaad barataan saaxiibayaal sida guryaha loo dhisa iyo sida guryaha loo naqshadeeyo iyo sida guryaha sidoo kale interior design loogu sameeyo oo architecture baan ka soo hadlay laakiin interior designer sidoo kale sida gurigaasi iyo naqshadaasi iyo wixii galaya gurigaasi guri waad u baahan tahay inaad barataa meel fara badan ayaad sidoo kale ka daawan kartaan dhaqaale fara badan ay leeyihiin 500 ilaa 5,000 ayaa interior designerada ugu badan ay qaataan gobolkan qaarkood ay qaataan iyo ka badan dad qaato waa uu jiraa marka waxaan idin kula talinayaa saaxiibayaal waxay tahay inaanu muruqeena maalno oo aanu gacanta ula tagno gacanta aanu ka shaqeysano wadooyinka sidoo kale dhismaha wadooyinka I think qofka haduu course sanad u qaata oo la xiriira dhismaha wadooyinka looma baahan doono in wadooyinkeena ay ka shaqeeyaan dad ajaanibi ah hadii solarka aad barata hadii aad biyo-gelinta barata hadii aad matoorada iyo sidoo ceelasha loo qodo aad barataan these are dhammaan xirfado waxaan arkay ceelasha laga qodo dalkeena dhamaantood sidoo kale waxa ka shaqeeya dad ajaanibi ah marka in dhalinyarada Soomaaliyeed oo sidoo ceelasha loo qoro barta sida farmingka beeraha hadii aan sidoo kale u taga sidoo kale sida farmingka loo sameeyo amaba loo ixtiraaqa businesska noocaas looga shaqeeyo marka fadlan waxaan idin kula talinayaa saaxiib mar raba inaan muuqaalka ku dheeraado ahmiyadiisu waxay tahay muuqaalkan aan ugu talagalay inaan idin ku dhiirigeliyo saaxiibayaal xirfadaha gacanta inaanu xooga saarno oo aan juhdi badan gelina oo 100% aan isugu tagna inaanu barano xirfadaha 12 xirfadood iyo ka badan ayaa jira oo ah xirfadaha gacanta ee la baran kara 2025 iyo wixii loo joogo dunida digital ayay noqotay Soomaaliya ayaanu joognaa Afrika ayaanu joognaa wali nama soo gaarin teknoolajiyada waalida ku socotay caalamka ay ka faa'iideysanahay wayna soo gaari doontaa mar aan maanta balse hadda waxa aanu haysanaa inaan wax ku bilowna dhalinyarada waxaan ku dhiirigeliyaa in ay coding bartaan which ay laftarka skills gacanta laga sameeyo ay tahay oo computerka laakiin diis xirfada hadda waxa ka faa'iideysan kara waxaan arkaa dhalinyaro badan oo igdhaha oo graphic designer baan bartay Canva baan garanaya si wax looga edit gareeyo Photoshop baan garanaya wali shaqo fiican ma haysto wali nama soo gaarin suuqaasi dhalinyaradeenna wali ma soo gaarin suuqaasi ma haysan karna hadii aanan sida website-yada Upwork iyo Fiverr meelahaas aan wax ku soo gudbin karin people per hour aan wali haysan isla markaana Gateway International aan haysan ee caalami ah hadda waxaan haysan waxa weeye in xirfadaha aan idin soo sheegay oo la midka aad waqti gelisaan maalgelin yar aad gelisaan isla markaana aad wax ka soo saartaan inta 5 sano 10 sano soo aad Afrika ay si fiican teknoolajiyada u soo gaaraysa shirkadaha waaweyn ee caalamka ay u soo dagayaan Afrika isla markaana dalkeena uu horumar ballaaran oo dhinaca teknoolajiyada gaaray laakiin hadda waa inaan waxaan haysanaa aanu naqaana aan waqti badan gelinaa isla markaana aad barataan marka fadlan waxaan idin kula dhiirigelinayaa dhalinyarada muuqaalka aad buu ila dheeraada ma rabin in intaan ila soo gaaro in aad juhdi badan gelisaan saaxiibayaal dhinaca farsamada gacanta waa inaan waqti gelinaa oo aanu ku dadaalnaa oo aanu baranaa oo aanu ka war doonaa marka shaqooyinka maalinlaha ah adigoo haysta ayaad farsamooyinka gacanta aad sidoo kale baran kartaan xarqaanta ayaad baran kartaa dad fara badan ayaa dharka ka shaqeysta tolista kabaha iyo saarista kabaha ma arkin shirkad kabaha soo saarta dalkeena marka hadda Ethiopia amal waxaan arkay shirkad aad u weyn oo caalami ah oo kabaha soo saarta gabar yar oo Ethiopian ba meel fariisatay waxay ictiraaqday shirkad kabaha dhoofisa marka kabaha ayaa laga dhoofiyaa Ethiopia waxa ku yaala shirkado waaweyn oo dharka dhoofiya Ethiopia waxa ku yaala shirkado waaweyn oo qalabka naqshadaha ee guryaha dhoofiya aadka ay sidoo kale dhoofiyaan marka inta Ethiopia laga dhoofiyo in lamid ayaan inaga dhoofin karnaa laakiin waxaan u baahanahay in anaga maskaxdeena bal aanu furno oo aan halkan indhaha aanu ku taageyna oo siyaasadda iyo shaqadaasi noocaas kaliya aan indhaha ku taageyna aanu noqono dad maskaxdooda furan tahay isla markaana saaxiibayaal si xor ah u fakara oo wax ictiraaq oo wax soo saara oo wax abuura oo gacanta ula taga xirfadooda iyo muruqooda maal aad u mahadsantii waxaan idin leeyahay muruqiina maalo dhulka mira ka soo saarta wad mahadsantii